wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afari nusafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay aryaada heer kala maanow xalay si reeysan u seexda farxadna waa la soo kacay abdulo islaantiya mataanikiin dhalay xilkii lagu magacaabay miyaa la ansixiyey war majallada daaqad laga tusay maqaamkii muqdisho miyaa la ogolaaday aryaadaha waxaa soo dhan walax ka gadisanaan maqlayo hubuuru kiyaatoo calaacalayaan dhegaystay oo dhahaya Soomaaliya nagu soo xadgudubta xuduudkii ay nagu soo dhaaftay waddankan yay ciidan soo gelisa waa wareey beesha caalamkana waxaan u sheegaynaa haddaan Soomaaliya lana ka qaban dhibaato dhici doonta haddaanba marqaati ka ahaadha asagoo dhahaya 30 sano la soo dhaafana waxaan maqli jiray oo dhegtayda ku soo dhacaya Soomaalidoo dhahaysa waa nala ku soo xadgudbay waa nala soo faragelsha waa nala dulmihaya arikaalaya armara ka ahaadha muga haddii kuwii nagu xadgudbi jiray beriga waa nala ku xadgudbay dhahayaan horumar Soomaalidu gaarta iga dhataas hore waxaa loo yiri nin walba waxaad fashay filo waa lagu falayaa war mar hore mayba leeray lankitiin abuurada timir muguridaw war waxaa la yiri xadgudba waa lagu xadgudbaa xishoodana waa la xushmeeyaa aryaadaha waxaa hore loo yiri kalaamaadaad kaasi tira katiitay komba kulatal kalaamaadaad kaasi tira katiitay komba kulatal waxaa kaloo heesii 77 kamid ahay saanti masiya god madax shabeelefta malageedi waa galay abdulo waliba kale horlangalay inta haanta qabada qaarka sare banaan yahay taa kana qabyada tahay qalabku waan sideynaaye ma jirto he qabyo waa halkeediina waa jirta Soomaalidu qab iyo kiibir marna qaadan mayso aad ka tagtay warnimayo waxaa la yidhi dulmi inay waddo Kenya ay inugu soo duushay waa miduu dadweynuhu arkoon inaga dahnayn diyaar baan dalkeennana u nahay inaan difaacnaa colkaloo Itoobiya dumtood doora baa jira coladuuga way ina dhextiil aad u daba dheere maxaa noo damaanada inay daacad tahay taas war isku dirka madaxda iska daaya niman yahow geedkana fariidin siyaasadii adduun lama socotiine madaxweyne farmaajo Uhuru Kenyatta qadka teleefonkay ku wada hadleen war Uhuru Kenyatta wax badan oo farmaajo teleefon ku dhageystaa la yiri maasaa maanta soo wactamay inuu soo wactamo dantaa tiri waxay tani keentayo olba derisila noqdee miyuu yiri teleefonkan diraba farmaajan iga qabay yaray war kollayba ninkii dan lahaa wax wacee labada madaxweyne waa wada hadleen Twitterka fila Soomaaliyana waxaa lagu qoray in laga wada hadlay deris wanaaga iyo ammaanka xuduudda in la dhowro mar dambana aan la isku xadgudbin war waxaa kaloo lagu heshiiyaa la yiri in laba guddi la sameeyo oo ka wada shaqeeya xiriirka labada wadan warnimayo waxaan xan ku maqlay in madaxweynaha Kenya xafiiskiisa fadhiya ay bisan madow daaqada uga soo gashay dabadeedna uu mooday ciidankii gorgorow soo daatay dabadeedna kursiga si halhaleela uga booday markaa ka bacdu madaxweyne farmaajo soo wacay baa la yiri war soo joog ninka laga waayo soo jiif baa laga helaa Uhuru markii danab u soo dhacday ma yiri iko matata laakini war madaxweyne farmaajo ayaa Uhuru dejiyo wuxuu yiri akuna matata war batati soo gada miyuu yiri hubura musuri saana ma yiri war Kenya ciidankayga wala baxaynaa bay yiraahdeen ma cabsi baa u geysay aryaadaha Kenya ciidankeedu amba ha joogan amba ha la baxeen waxa la dhahay weewe waxaad wada jooji waryaal kala maanta guul wadanimadiinu waa saa'ide makaankii aad u heesteen aryaha wareerin kala maan Kenya iyo Soomaaliya dhexdhexaad kama ahe waa Soomaali dhabahe warnamiyo nimanta kala maan leeyay dhagan Soomaa boqoradaasaan baysan dawlad amalo ama jiir amalo lankiyo ka dhagan fadayaan afuufayaan marka hore warnamiyo war ma haysaane ambassador Awliyo hadda koor 42 qof oo maxaabiis Soomaaliyeed oo Iran ka soo daayay war ambassador Awliyo mashiica haddana 8 qofood ugu dambeysay ayuu ka soo daayay marka airport ka soo bixi lahaayeen
waxaa ku soo aaday amarkii wasaaradda caafimaadku soo saartay oo ahaa 20 beri dalka dibadda loogama imaan karo marka awliyo iyo maxaabiistu uu soo daayey Iiraanay ku wada xayiran yihiin war wasiirka caafimaadka markay leedahay Iiraan iyo Shiinaha ma laga imaan kara Soomaalida wadamadaas ka imaanaysa yaa mas'uulka ah war may baliyaabsana wasaaradda caafimaadka may artay qofkii udurka corona lanka shakiya isbitaalka Martini laga karantiile marka hadii isbitaal Martini hadiiba karantiin lanka talagali dadka Soomaaliyeed ma Iiraan lanka karantiil anta may sheeno may ka karantiilo isbitaalka war ambassador awliyo goormo Iiraan safiirka ka noqday sababtii xiriirka loo jaray ma ahayn war ambassador awliyo waa ninka ugu weyn xoog wadaniinta meel kastana safiir uu ku yahay Iiraan safiirka ma aha macaamil ay leeyihiin aryadaha hadda ka hor muggi Ciraaq iyo Ameerikaanku dagaaleen feeryahan ka weynaayo Maxamed Cali Kalaay hayehe feero faday arrimarkaan hayga dhex gelina Saddam Hussein oo u tagay kadibna siyeed qofood oo Ameerikaan heedo maxaabiis heedo ka soo deeyay kadibna waxa la siiyay bilada nabadda adduunka ee Nobel Prize muga awliyo ayatullaahi Khomeiniyon xiriirka u goynay min qonto qofood oo maxaabiis ka soo deeyay ma asagaan mudnaan in Nobel Peace Prize la siiyo naftirkiisu ambassador awliyo uu mudan yahay in la siiyo Nobel Peace Prize laakiin qolada bixisa Ameerikaanka kala qaalisan Soomaalida war annagu ma siinno maxaan ka rabnaa cid kale inay siiso war may siyaasan madbacadii qoraalkaas daawa Allah ay tib masiin suubsana war abaalmarin madaxdeenu waa bixiyaan ra'iisul wasaare Khayre wuxuu bilad sharaf guddoonsiiyey ugaas Xasan ugaas Khaliif ilaahay barga kadib balaayo looma keeno ma yirihe war ugaas Xasan ugaas Khaliif wiilku abtiga waa Xasan Sheekh Maxamuud berigu madaxweynaha ahaa waa tay isku murxeen ra'iisul wasaare Khayre maxay ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeen baan u malaynayaa in ra'iisul wasaare Khayre uu yiri ugaasyada dalkayaga ka taliya xushmad weyn waan u haynaa war biladaas ugaas galisiyo waxay hordhac u tahay doorashada ka dhici doonta Hirshabelle war Hirshabelle waara gareen baa joogay maxaa doorashada lagula falaya war waara gareen waa ay la ogaadeen goodaha gareen ka mudun gareen yaa goodaxadaan gobolaadan yey guube gareen yaa goodaxadaan gobolaadan waa guubeen war waxa la yiri ceel cali meeshii dhagax qaaliga laga helay shabaab iyo macaawisleeya isku dagaalay beesidii dhagax ilaah ka gadiya lishanay ma dhagxa kale koobaha laga helay war macaawisleedu miyay waalan tahay la dagaalanka shabaab dawladda ka xishootay war taliyaha macaawisleeya wuxuu yiri nin ay al-shabaab u doorteen nabadoon asaga ilaaladiisu waa dilni war macaawisleey maxaa ku dhacay dhaqankaas oo kii shabaabka ma ahayn war warkaan ugu daalinine macaawisleey waxay yiraahdeen dagaalka joojin mayno war ma haysaane shabaab xal cirka looga soo dhacay salligii ay ku lahaayeen Saako iyo Jilib ayaa duqeyn lagu xarqiyay aryadaha hore waxa loo yiri magaalada aan ka dego miigana aan kugu dilo manfaacada aan ka cuno adiguna ka macaluul maqaar saarna ii naqo miyay bariga nagu maraysa war aniguba waxaan maqli jiray wanka macaasha ii qabo adna gowracii mare dhiigana aan muudsado war may banaganay ka aalay lan oo gobaden danti ii waqtiga durdurki ii biyo darka aragaw dareele ko ooman war adeer ku afkaran maynaa maxaa durdurinaya wareeda war ma haysaane madaxdii madasha xisbiyada qaran waxay ku shireen Istanbul oo Kenya ma ka badisheen imaaraadka isku dhaafeena xabar miyaa loo diiday Ethiopia ma laga xidhay yaa Turkiga goorma la isla ogolaada in lagu shiro duruufa keenta meel walbana waa lagu shirayaa in dhageyso waxay ku heshiiyeen baa la yiri hal xisbi inay samaystaan hal musharaxna ay yeeshaan marka waxaan u malaynayaa bur iyo biyo in loo kala bixi doono ma waxay dhaheen dharigi farabataa waa fuud xaraareeya maya may baareen ambuul galnya badiyeen mangrong waraan ku walaayide dawladda Soomaaliya xadka Kenya ay soo xiraysaa wadadii afgooy Muqdisho u dhaxaysana amni daraa loo dhisi waay war jidka afgooyoonay hamaran dhaheeye hamiinkina walka dareere walaari ilaa waa ka bariyaw maalintina quful weyn la saare war nin Soomaali habeen madow wuxuu yiri maxaad wadaa liima dhihin maxaad haysaa la yiri waraan idin waale hay'adaha dawladdu waxay sheegtay Soomaaliya inay ka dhacayso doorasho qof iyo coda balcad iyo afgooyana lama tagi karo aryadaha aniguna aan idin waale hay'adaha dawladdu waxay sheegtay dayuuradda Soomaali Airlines inay soo celayso ammaanka dhulkana lama haayo war ay waalateena hay'ada dawladdu waliba sheegday Soomaaliya no deendilka FAO laakiin waliba liyaabsana dal oo laagan lahayna deen walku FAO war Puntland iyo Jubaland waxay dhaheen beyle mar dambe kala ma hadlayna deen cafinta kalena shaqeyn mayno kalena shirmayno bahwiinti reer leen Israa'iil
maayahe waraan waale hay'adaha dawladdu waxay sheegtay in shidaalkii la soo saarayo maamulkiina waa lagu heshiin leeyahay warnimay waan idin waale hay'adaha dhihi mayno xadna waale hoon kaa sidanaa qaran dumisaa tahay haddaan inaad nawaasho diidnay ma qaran dumisaanna war madasha loo bixiyey muqdisho forum habeenkii saddexaad la qabtay ma mar kale la isku feeray maqaamka muqdisho lanka hadalay war dastuurkii ma looga dooday war meelay idinkaga dhagan tahay waxaa looga dooday doorashada iyo sidii ay dhalinyarada uga qayb geli lahaayeen tahliil shataxna wuxuu yidhi madashaan waxaan u abaabulnay in bulshadu aragtidooda soo bandhigaan war xaliimiyada beledweyne jirtaa doorashona ma qaban warnimiya war mahaytana sheekh shaakir iyoonay wafdi hogaamiyaw yaseedan garow waana mayba kabiiran hirti maalin mahmuud war mawlicii dhuusumaraab ku yeele miyaa garowe laga furay war jaamacatu raq ayaa la raray ornaga mashiiqii shiiq yadaanu soconaa ay dhaheen war saas maarna may baaraana macalinkeena mahmuudo maasha allaahuye maantaana ku nimide meel maan tagaynaaye war dawladdan korona ku waalatay shuumbiyoodka hirshabeelle ka socdo ma wax laga qabto war qoorqoor iyo cabdi qiibdiid oo shuur ay arkay maxay isu sheegeen shubanbiyood nadaafadda maa lagu dadaalo waryaa taalibaan iyo maraykanku waa baxa balaaya idinkuma dhacdee war nin baa disha waryaa weligeedaa leesdili jira shirkadda baraka waa shirkad ganacsi oo ku shaqaysa habka online-ka waxaana maalgashaday bulsho badan ee aadna ku biir baraka waa bishaaro baraka leh beesadaad u dhiibtaana waa badbaado bil kasta ku badanaysa waa business adduunyada ku ballaarta ee ku biir baraka online